madaxweynaha hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo mucaarad weyn hadda ku ah labadooduba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladiisa si weyn uga soo horjeeda arrinta wax ka bedelka dastuurka ayaa dacwad ka dhana madaxweynaha qaranka waxay u gudbiyaan beesha caalamka iyagoo ka dalbaday inay soo farageliyaan xiisada ka dhalatay dastuurka ee hadda taagan. labadan madaxweyne ayaa siyaabo kala duwan waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kulamo ay ula qaateen safiirada ku sugan magaalada Muqdisho si gooni ah waxa ay diiradooda ugu saarayeen xubnaha ugu saameynta badan beesha caalamka oo uu ka mid yahay Mareykanka safiirkooda ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si ay uga dhaadhiciyaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laga hor istaago wax ka bedelka dastuurka ee xilligan uu wado, waxaana ay ku dacweeyeen inaan loo dhammayn oo maamul goboleedyada qaarkood ay ka maqnaayeen madashii looga hadlayay in dastuurka wax laga bedelo. sidoo kalena hanaanka xilligan dastuurka wax ka bedelkiisa uu ku socdo uu yahay mid aan la isku raacsanayn oo gebi ahaanba wax ka bedelitaan dastuur uusan socone dastuurka dalka oo dhan la bedelayo, taasina u baahan tahay in marka hore laga wada fariisto oo kulamo ballaaran la qabto kadibna laga tashado nooca dastuur ee dalku yeelanayo sida uu ekaanayo. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kulamadan dadejinaya ayaa kulankiisa ugu dambeeyay waxa uu la qaatay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya oo ay ka wada hadleen arrimo ku aadan siyaasadda. labada mas'uul waxaa si gooni ah diiradda u saareen arrimaha wax ka bedelka dastuurka ee dadaalada dowladda ay wado iyo sidoo kale tillaabooyinka uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo gudbiyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed doodooda ku aadan wax ka bedelka dastuurka iyo sida ay uga soo horjeedaan. dhinaca kale Sheekh Shariif wuxuu hordhigay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ADMIS oo u arkaan mucaaradku in ay halis weyn iyaga ku tahay, waxaana xoguhu ay itibaaxayaan in Sheekh Shariif uu dalbaday in bixitaanka ciidamadaas aan lagu degdegin oo loo cagdhigo inta Soomaaliya amnigeeda iyadu si guud ay gacanta ugu dhigayso. sidoo kale waxaa Sheekh Shariif qoraal uu soo saaray kadib kulanka uu ku sheegay in si gaar ah diiradda ay u saareen isaga iyo safiirkan arrimaha dastuurka oo ay haatan ku howlan tahay filla Soomaaliya. waxaan si qoto dheer uga wada hadalnay dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo doodiisu ay muran badan ku taagan tahay qaabka loo wajahayana la isku maandhaafsan yahay ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray. madaxweynaha hore oo ka mid ah dadka diidan wax ka bedelitaanka dastuurka ayaa sheegay in isaga iyo safiirka Ingiriiska ay isla garteen in doodaha socda laga talageliyo shacabka si ay kaalin ugu yeeshaan dhamaystirka dastuurka iyo dadaalada socda. waxaan isla soo qaadnay in si daahfuran loo wajaho lagana talageliyo qaybaha kala duwan ee bulshada si kaalin mug leh ay ugu yeeshaan dhamaystirka dastuurka si looga gudbo xaaladaha jahawareerka ee hadda taagan ayuu ku yiri hadalkiisa Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labaduba horey u soo hogaamiyay dalka ayaa waxa ay wadaan olole xoogan oo ka dhana qorshaha filla Soomaaliya ee ku aadan dhamaystirka dastuurka dalka, waxaana horey ay ula kulmeen siyahayaha safiirka Mareykanka iyo sidoo kale xubno kale oo ka mid ah beesha caalamka iyagoo la wadaagay mowqifkooda ku aadan wax ka bedelka dastuurka ee socday dadaalada ay sameynayso filla Soomaaliya. xubnahan mucaaradka waxaa dadaal xoogan ay ku bixinayaan in la fashiliyo qorshaha ay wado filla Soomaaliya oo doodiisu hadda dastuurka ay ka socoto baarlamaanka, waxaana labada madaxweyne mar ay horey uga hadleen dastuurka ay sheegeen inuu afduuban yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladiisa oo albaabada laga xirtay maamul goboleedka Puntland oo arrintan ka soo horjeeday dhammaan mucaaradka, waxaana ay wadaan qorshe ay ku dalbanayaan in gebi ahaanba dastuurka mar kale arrintiisa dib loo soo bilaabo oo si looga doodo shacabka loo soo bandhigo kadib la aruuriyo xubno shacabka matala oo arrintan dhankooda kasoo tala bixiya mucaaradku kaalin ay ku yeeshaan sidaasina jiitan dheer uu ku wajaho, halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladiisu dadaal ay gelinayso in qodobada aan habboonayn amaba doodu ay kasoo laaban karto wax ka bedel lagu sameeyo isla markaana la dhamaystiro dastuurka. culayska ugu weyn hadda waxa uu haystaa filla Soomaaliya oo xildhibaano badan oo ilaa 71 gaaraya ayaa kulan ay wadajir iskugu yimaadeen Muqdisho ku qaadacay wax ka bedelka dastuurka ee socda, waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ugu baaqeen in la hakiyo hanaanka xilligan dastuurka lagu wajahayo, waxaana ay ku hadleen luuqad la mid ah tan mucaaradka oo si cad ay u sheegeen in waxa socda aysan ahayn wax ka bedel dastuur ee gebi ahaanba la doonaya in dastuurka la bedelo, taasina ay u baahan tahay in dib loogu celiyo maamul goboleedyada shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale cid walba oo siyaasadda dalka kaalin ka qaadan karta.